بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنيال أمان ومدة halkan ugu soo dhaweysay saxaafadda marka hore waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib ilaahay baa mahad leh lagu soo nabad celiyay dalkii hooyo marka labaadna waxaan mahad leh dhammaan madaxda dawladda iyo dhaqanka iyo shacabka reer Soomaaliland ee halka saakan ugu soo jarmaaday si ay noogu soo dhaweeyaan marka inta ka gudbo waxaan halkan ka baxnay waftigayagani arbacadii hore iyadoo aanu baxnay laba arrimood oo muhiim ah arrinna ahayd arrintaasi dawladda imaaraadka hawsha ay soo kala saxeexanaynay saldhigga ciidamada arrinta labaad ee aad iyo muhiimka arrintii abaaraha runtii oo dalka la socotaan abaarta ka jirta iyo dhibaatooyinka gaarsiisay ilaahay mahadii waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa in labadii hawloodba si wanaagsan ugu soo dhamaadeen tii abaarahana aan hay'adii khayriga ahaa haday ku dibay tahay iyo haday ku dibay tahayba aan iska soo aragnay runtiina aan ka sidno jawaab wanaagsan ka sugno oo degdega oo ay naga caawinayaan iyagoo maanta u arkay walaalahooda la mid ah oo dhibaataysan talabaad waxay taas saldhig ahayd waxay maanta guuli noo dhamaanteen in qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu la saxeexdo dawladda Imaaraadka Carabta inuu siiyo saldhig military kaasoo aynu ka faa'iideyno waa midda koowaad arrin siyaasi ah oo wax ka taraysa siyaasadeennii ama hiigsigeennii mustaqbalka ee dawladnimo iyo midda labaad waa mid wax ka bedelaysa dhaqaalaheena xag infrastructure iyo mid arrimaha bulsho qiimo badan inoogu fadhiya runtii waxaanan ku soo heshiinay waxa labadeena dalba faa'iido ah sababtoo ah laba waddan oo kastoo heshiis galayay waxay heshiiska galayaan wuxuu noqonayaa nuxurkiisu heshiis labada dhinacba ay ku qanacsan yihiin inay laba dhanba dan ugu jirto marka ummadda reer Soomaaliya waxaan soo qaadnay heshiis inagana dan inoogu jirto walaalaheena maartay aynu saldhigga siinay iyagana dan ugu jirto oo buuxiyay labadii danood labadii dal aan lahayn waxaan markaa ummadda reer Soomaaliya ugu bishaareynaa inay khayrka niyad wanaagsan ku qaabilaan ummadda reer Soomaaliland inay niyad wanaagsan ku qaabilaan iyaga iyo wixii la mid ah dalka maartay ajaaniba ay maalgelinayba iyadoo ay socoto in albaab weyn inoo furmay noqotay aynu soo dhaweyno aynu ka dayno inaan ku qaylino khayraadka inoo soo socdeen inaan qaylada ka dayno ayaan ummadda reer Soomaaliya shacabka meel joogaan farayaa dibadii gudaba aad iyo aad baa mahadsantahay wixii tafaasiil inta dheeraada si gaarimaha